sidoo goor ku dhacdo kale in wadaada ay ishaki Yurubu joogay caruurtiisa ilmihiisa iskuulka geeyay iskuulka waxa laga faray ilmihii lagu yiri shaqo guri baa loo diray waxa la yiri ilma kasta oo iskuulka dhigta waa inuu soo sawiro ilaaha ay waalidiintii caabudaan ilma kasta oo caruur yar yar 5 jir 4 jir waa 6 jir mid walba waxa la yiri waalidka waxa guriga uu ka caabudo soo sawir caruurta kale waxay keeneen mid sacbu keenay laana waalidkii sacbu caabudaa mid sanam buu keenay laana waalidkii sanam buu caabudaa mid wax buu keenay linkan wadaadkii xariifka waxa u dhigan jiray wiil baa u dhigan jiray marka wiilkii wuxuu geeyay male ilan aabihi wuxuu caabudaa ilaah uusan arkaynin sooma wuxuu sawiru garan waayay marka hadda buu duqi u yiri wuxuu ku yiri aabo iskuulkii waxa la iiga soo diro laga raba ilaah aad caabudo sawirkiisa keen ilaah aad caabudo sawirkiisa keen ya waayaba oo masagaba ka jawaabi kara waalidkaaba ka jawaabi karin waxay kaliftay dhacdadaasi inuu reerkii ka soo raro oo ilmihii la soo cararo oo ay u badbaadaan ilmahaaga marka balaayo ayaga dhaba mulxidiin oo mufsidiin oo diin lahayn oo akhlaaq lahayn marka u gacan galiso tara iskuul ii bara maxaad ka filaysaa adiga mase kala yaqaana adigoo hooyiye aaba iyo macalinkiisa iskuulka miyuu kala yaqaana ma kala yaqaan ilmuhu markuu yar yahay waxay u baahan tahay bi'ada aad geynayso ee wax ku baranaya haday iskuul tahay haday madrasa tahay dadka gacanta ku hayana inay yihiin dad lagu aamini karo